habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay waa mar kale iyo barnaamijkeena wararka iyo caawa qodobadan idinku hayana waxaa ka mid ah dowladda Israa'iil oo si buuxda u aqoonsatay Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ay taariikhdu ahayd 26 Diseembar 2025 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo si weyn ugu mahadnaqay dowladda Israa'iil sheegayna in dowladda kale oo waaweyn ay ku raaci doonaan ictiraafka oo dhowaan caalamku isku raaci doono ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland boqor buur madow oo goordhoweyta waraysi bixiyay kana hadlay ictiraafka la siiyay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Israa'iil siisay isagoo oo sheegay in goobaha caanka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalooyinkeeda ku yaala loo bixiyo magacyada Tel Aviv iyo Haifa inamada reer Soomaaliland u dhashay hadda wixii ka dambeeyana loo bixiyo magacyada madaxda ugu sarsaraysa dalka Israa'iil sida Benjamin Netanyahu oo kale magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida caasimadda Hargeysa Burco Gabiley iyo Boorama oo si weyn looga dabaaldegay caawa dadkuna ay isugu soo baxeen sharciyada waaweyn ee suuqyada daawadayaal halkan aad nagala socotaan waa Kennedy Media anigu abwaan Kennedy barnaamijka idin la socodsiinaya qodobada wararkeygana caawinta ayaa ugu door waaweyn haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan muuqaalkana share gareeyo ha ka ilaawina YouTube-ka subscribe dhageysi wanaagsan Mr. President, mudane madaxweyne it's good to talk to you and inta aynan wax kale ka hadlin waxaan doonayaa inaan kugu wargeliyo inaan imika saxeexayo aqoonsiga Somaliland official recognition of Somaliland and inaad xaq u leedihiin inaad noqotaan qaran madax bannaan saaxiibtinimadeennuna ay tahay mid soo jireen oo taariikhi ah I'm very proud of this day and maanta aad ayaan u faraxsanahay uguna faanayaa very bad waxaanan u rajaynayaa dadka reer Somaliland farxad waarta expanding our partnership waxaanan filayaa tani inay fursad weyn u noqon doonto ballaadhinta saaxiibadayada aanu dunida ku leenahay we intend to work together with you waana xilligii aynu ka wada shaqayn lahayn arrimaha dhaqaalaha dhinaca waxbeerashada iyo dhinaca horumarinta arrimaha bulshada we can waxaas oo dhani waa kuwa aanu idinka caawin karno annagoo aaminsan saaxiibtinimadeenna soo jireenka that there is a waxaana halkan Israa'iil ay idinla diyaartahay waxyaabo badan oo aad ku farxi doontaan fursadana madaxweyne waxaanu uga faa'iideysanaynaa in aad noogu timaado booqasho rasmi ah Israa'iil and I hope very waxaanan aad ugu faraxsanahay rajaynayaana inaan halkan kugu arki doono waa maalin la yaab leh oo taariikhiya President Trump waxaan madaxweyne Donald Trump kala hadlay rabitaankiina ku aadan inaad danaynaysaan inaad ku soo birtaan please convey Abraham Accord annaga oo Soomaaliya rajaynayna waxa aad fariin naga gaarsiisay anigoo ka wakiila dadka reer Israa'iil fariinta ay u soo dirayaan dadka qaranka madaxa bannaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waad mahadsantahay madaxweyne aad ayaad ugu mahadsantahay ra'iisul wasaare waanu kaaga mahad celinaynaa halkan waxa ay la jooga gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya iyo madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanan aqbalay soo jeedintiina iyo aqoonsigiinaas we should arrange it sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa salaan diiran iga gaarsiisaa saaxiibadaada kula jooga iyo shacabka reer Soomaaliland thank you very much aad ayaad u mahadsantahay mudane madaxweyne next waxaanan ku rajaynayaa inaynu sanadka dambe isku arki doonno caasimadda Israa'iil Jerusalem ama Qudus aad ayaad u mahadsantihiin thank you all bye thank you mudane madaxweyne muwaadiniinta gobonimada badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dal iyo dibadba ku nool dalalka saaxiibka la ah qarankeena Soomaaliland iyo dhammaan boqorrada amiirada madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaareyaasha dalalka dunida oo dhan maanta 26 Diseembar 2025 maalin weyn bay u tahay dadka iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dharaar bogdahaba ku yeelan doonta taariikhda qarankeena waxa rumowday riyadii aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu 34 sano halganka ugu jiray wixii weynaa shacbigu sugayay baa maanta yimi dowladda Israa'iil ayaa go'aan go'aansannimo leh qaadatay oo si rasmi ah dunida ugu sheegtay inay si buuxda u aqoonsatay qarannimada jiritaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dowladdii ugu horeysay ee si rasmi ah u aqoonsatay madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ka dambeysay la soo noqoshada qarannimada Soomaaliland 18 May 1991
waxaan idinku bishaaraynayaa in dalal kale ay dariiqa aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan soo hayaan laakiin ma aha markii ugu horreysay ee dowladda israa'iil hormuud ka noqoto aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan hore ayay u ahayd dalkii ugu horreeyey 35 dowladood oo somalilan aqoonsaday markaynu gobonimada ka qaadanay boqortooyadii ingiriiska 26 juun 1960 waa taariikh mar kale isa soo celisay waxaan rajaynayaa in 34kii dal ee xilligaas ku weheliyey aqoonsigu inay iyaguna mar kale soo nooleeyaan taariikhdaas oo ay dunida inta hadhay horseed u noqdaan aqoonsigeennani waxa uu marag u yahay dhiiranidii adkaysigii iyo isku tashigii aynu kula soo noqonnay qarannimadeenna iskaashigii aynu ku dhisnay nabadda cadaaladda iyo nidaamka dimuqraadiga ah iyo dhabaradaygii aynu ku sugnay maalinteenna laakiin weli faraska heensaha kama rogayno waxaynu sii labalaabaynaa halgankii aynu aqoonsiga buuxa kaga raadsanayno dowladaha dunida oo dhan innaga oo intii hore ka dhiiran kana kalsooni iyo haladayg badan waa xaq aynu leenahay sharci ahaan dunida badankeedu waxay garawsatay in jamhuuriyadda somalilan tahay xaqiiqo jirta oo aan cidina dafiri karin siyaasaddii arrimaha dibadda ee xukuumadda wadajir iyo waxqabad way guulaysatay waxayna rumaysay riyadii ugu weynayd ee shacbiga reer somalilan waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa in dowladda soomaaliya ee aynu jaarka nahay u sheego in ummadda soomaaliyeed ay tahay dad dhiig dhaqan wadaaga amnigooda iyo dhaqaalahooduna isku tiirsan yahay laakiin aanay qasab ahayn qasabna ka dhignayn inay dowlad keliya noqdaan waayo aragnimaduna waxay ina bartay in soomaalidu iyadoo kala dowlada ah ay deris noqon karto walaalnimo iyo iskaashi midho dhal ana ku wada noolaan karto innaga oo xor ah ayaynu doonisteenna ku dhisannay jamhuuriyaddii soomaalida oo maanta aan xitaa magaceedu ku jirin dastuuradeenna nasiib darro laguma liibaanin waxaynu ka dhaxalnay cawaaqib xumada aynu maanta weli la kaca ku fayno natiijadeedii waxaan ka digayaa kusii dheganaanta taariikhdaas burburtay dadaalkeenna iyo dhaqaalaheenna aynu ku bixinno dhaymaha nabarrada bulshadeenna ka soo gaadhay riyadii soomaali weyn ee lagu hongoobay innagoo ah dowlado kala madax bannaan aynu wada ilaashanno danaha aynu wadaagno ee gobolka iyo dunidaba saaxiibadayada gobolka dowladaha aanu jaarka nahay iyo guud ahaanba qaramada dunida waxaanu u damaanad qaadaynaa in aqoonsiga somalilan aanu cidna cadaawad iyo dhibaato kuna hayn doonin jamhuuriyadda somalilan waxay hore u ahayd imikana oo aqoonsi heshayna sii ahaan doonta qaran xilkas ah oo mas-uuliyad weyn iska saara nabadda iskaashiga iyo horumarka oo la wadaago waxaan u mahadnaqayaa oo aan ugu mahadnaqayaa magaca shacbigayga dowladda iyo shacbiga israa'iil oo ka soo jawaabay codsigaygii aqoonsiga ee aan u qoray 17 May oo aan madaxda dunida oo dhan u kala diray waxaan mar labaad cusboonaysiinayaa codsigii aan u qoray dhammaan madaxda dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay oo aan ugu baaqayo aqoonsiga somalilan oo ah dowlad xilkas ah kaalin muhiimana ka qaadata ammaanka iyo horumarka dhaqaalaha gobolka badda cas iyo dunidaba waxaan ka codsanayaa urur goboleedka IGAD midowga Afrika jaamacadda carabta dalalka iskaashiga islaamka dalalka commonwealthka iyo qaramada midoobay inay aqoonsadaan xaqa ay somaliland u leedahay inay xubinnimo ka hesho dhammaan golayaashaas waxaan alle ka baryayaa qarankeena jamhuuriyadda somaliland inuu noqdo qaran ku waara midnimo nabad horusocod iyo wax wada lahaansho dadkiisa shacbigayga jamhuuriyadda somaliland ee xiriirta ah waxaan ugu baaqayaa midnimo nabad iyo wada jir waarta waxaan ku gunaanadayaa hambalyo
riyadii qarankaa rumowday waxaan ku soo guraanadayaa maadaama aynu ixtiraafkii helnay waxaan farayaa hay-adda shaqaalaha inay fasax siiso shaqaalaha dowladda sabtida iyo axadda si shacbigu u dabaaldego labadaa cisho hay-adaha amnigana waxaa faraya inay ammaanka sugaan gacmaha aynu isqabsanno somaliland ha noolaato salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inaanu xayfa iyo talaabiib iyo u bixino shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashadeeda Netanyahu iyo haddii aan laba leeyahay aan ragga la midka aanu bixino boqor cismaanow maxamuud buurmadow oo ka mid haysimada dhaqanka ee Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil boqorku waxa uu tilmaamay in 34 sano Somaliland cidina dhageysan weyday ama ka garaabi weyday qadiyadeeda ha ahaato Soomaali ama dalalka kale ee Carabta boqor cismaan waxa uu ku taliyay in wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Somaliland sida Berbera Hargeysa iyo Burco loogu magac daro magaalooyinka Israa'iil ee Tel Aviv iyo Haifa dhanka kale boqor cismaan waxa uu sheegay in wiilasha u dhashay reer Somaliland ay tahay in loogu magac daro madaxda ugu sareysa Israa'iil sida ra'iisul wasaare Netanyahu iyo kuwa kale ee dalkaasi hadaladiisana waxa kamid ah sida tan waxa weeye shacbiga kan Somaliland waa shacbi baasila oo sharaf badan oo samir badan oo u samray wax kasta oo lagu sameeyay waxaan arkaa guul baan arkaa waxaan arkaa sharaf baan arkaa waxaan arkaa dawlado badan oo Carbeed iyo muslimiina wanaagay Somaliland gashan waayeen inay gashatay Israa'iil iyo Netanyahu waxaan arkaa Somaliland inay ka soo saareen urlibaax waxaan leenahay nibata cabkii tubay kaamaaliyeen waliba wuxuu gashada Somaliland ayuu ka maali doonaa insha Allah taala waxaan ku sheegayaa Soomaaliya waxa halka gaarsiiyay Arabi waxay la wada heshiisay Israa'iil dowladda Soomaaliya waxa burburiyay Maxamed Siyaad Barre 35 wafdi buu kala diray caalamka si aan loo ictiraafin Israa'iil godob bay u keentay Arabina way la heshiisay cidii godobta iyo dhibaatada iyo burburka lagu sameeyay caalamka kula dagaalamayna waxay noqotay Soomaali wata labaad waxa weeyaan dhowr iyo 30 sanadood ee ay Somaliland sidaysay ee mowqifkaada ku taagnayd 24 dal 23 dal ee Carbeed waxa weeyaan wax naxariis uma gelin marka anaga qadiyada Falastiin ma eegayna taayadaan ka horeysiinayna marka wax noqono baanu cid wax la tari karaa marka anagu waxay noola mid ahaan lahayd 23 hore dawladda Carbeed hadday iyagu xor ahaan lahayd maanta cod ahaan lahaydna kama sugayn Carab wax dan iyo wanaaga kama sugayn kuwaas bay noola mid ahaan lahayd marka iyaguna nasiibkooda iyo anagu waanu kifaaxkaygi baanu maanta ku helay iyagana kifaaxooda ha kifaaxeen laakiinse wax nooga gaara iyo godob dambe aanu gelayno dawladda Carbeed midna ma jiro anagu waxa weeyaan Soomaali wayna dishay wayna duqeysay wayna la dagaalantay wayna barakeysay wayna qaxisay waxna xariisa kamaanu helin waxaan u mahadnaqaynaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa oo Somaliland maanta gaarsiiyay inay ku Tel Aviv ka degaan naxariistaradii iyo xumaantii ay kula dhaqmayeen inay halkaa gaarsiiyeen meel aanan islahayn ku dhiiranayn aan gaarnayna gaarsiiyeen waan uga mahadnaqaynaa Soomaalina waxa loo wax iskaga kaaya xidhan ma jirto waxay arxan loo gashay ma jirto tayadaanu gashay maanta ciidaanu sharaf u haynaa wanaag u haynaa waa Israa'iil waxaanu u soconaa inaanu xayfa iyo talaabiib iyo u bixino shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashadeeda Netanyahu iyo haddii aan laba leeyahay aan ragga la midka aanu bixino boqor aad baad mahadsantahay habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhageysanaysay waa mar kale iyo barnaamijkeena wararka iyo caawa
qodobadan idinku hayana waxaa ka mid ah dowladda Israa'iil oo si buuxda u aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland maanta ay taariikhdu ahayd 26 Diseembar 2025 madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo si weyn ugu mahadnaqay dowladda Israa'iil sheegayna in dowlado kale oo waaweyn ay ku raaci doonaan ictiraafka oo dhowaan caalamku isku raaci doono ictiraafka Jamhuuriyadda Somaliland boqor buur madow oo goordhoweyta waraysi bixiyay kana hadlay ictiraafka la siiyay Jamhuuriyadda Somaliland ee Israa'iil siisay isagoo oo sheegay in goobaha caanka ah ee Jamhuuriyadda Somaliland magaalooyinkeeda ku yaala loo bixiyo magacyada Tel Aviv iyo Haifa inamada reer Somaliland u dhashay hadda wixii ka dambeeyana loo bixiyo magacyada madaxda ugu sarsaraysa dalka Israa'iil sida Benjamin Netanyahu oo kale magaalooyinka Jamhuuriyadda Somaliland sida caasimadda Hargeysa Burco Gabiley iyo Boorama oo si weyn looga dabaaldegay caawa dadkuna ay isugu soo baxeen sharciyada waaweyn ee suuqyada daawadayaal halkan aad nagala socotaan waa Kennedy Media anigu abwaan Kennedy ba barnaamijka idin la socodsiinaya qodobada wararkeygana caawinta ayaa ugu door waaweyn haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan muuqaalkana share gareeyo ha ka ilaawina YouTube-ka subscribe dhageysi wanaagsan Mr. President, mudane madaxweyne it's good to talk to you. And inta aynan wax kale ka hadlin waxa aan doonayaa inaan kugu wargeliyo inaan imika saxeexayo aqoonsiga Somaliland official recognition of Somaliland and inaad xaq u leedihiin inaad noqotaan qaran madax bannaan saaxiibtinimadeennuna ay tahay mid soo jireen oo taariikhi ah I'm very proud of this day and maanta aad ayaan u faraxsanahay uguna faanayaa very bad. waxaanan u rajaynayaa dadka reer Somaliland farxad waarta Expanding our partnership. waxaanan filayaa tani inay fursad weyn u noqon doonto ballaadhinta saaxiibadayada aanu dunida ku leenahay We intend to work together with you. waana xilligii aynu ka wada shaqayn lahayn arrimaha dhaqaalaha dhinaca waxbeerashada iyo dhinaca horumarinta arrimaha bulshada Hope we can waxaas oo dhani waa kuwa aanu idinka caawin karno annagoo aaminsan saaxiibtinimadeenna soo jireenka that there is a waxaana halkan Israa'iil ay idinla diyaartahay waxyaabo badan oo aad ku farxi doontaan opportunity to fursadana madaxweyne waxaanu uga faa'iideysanaynaa in aad noogu timaado booqasho rasmi ah Israa'iil and I hope very waxaanan aad ugu faraxsanahay rajaynayaana inaan halkan kugu arki doono waa maalin la yaab leh oo taariikhiya President Trump waxaan madaxweyne Donald Trump kala hadlay rabitaankiina ku aadan inaad danaynaysaan inaad ku soo birtaan please convey Abraham Accord annaga oo Soomaaliya rajaynaynaa waxa aad fariin naga gaarsiisay anigoo ka wakiila dadka reer Israa'iil fariinta ay u soo dirayaan dadka qaranka madaxa bannaan ee Jamhuuriyadda Somaliland waad mahadsantahay madaxweyne aad ayaad ugu mahadsantahay ra'iisul wasaare waanu kaaga mahad celinaynaa halkan waxa ay la jooga gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya iyo madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanan aqbalay soo jeedintiina iyo aqoonsigiinaas we should arrange it. sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa salaan diiran iga gaarsiisaa saaxiibadaada kula jooga iyo shacabka reer Somaliland Thank you very much. aad ayaad u mahadsantahay mudane madaxweyne Next, waxaanan ku rajaynayaa inaynu sanadka dambe isku arki doonno caasimadda Israa'iil ee Jerusalem ama Qudus aad ayaad u mahadsantihiin thank you all. Bye-bye. Thank you. mudane madaxweyne muwaadiniinta gobonimada badan ee Jamhuuriyadda Somaliland ee dal iyo dibadba ku nool dalalka saaxiibka la ah qarankeena Somaliland iyo dhammaan boqorrada amiirada madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaareyaasha dalalka dunida oo dhan maanta 26 Disembar 2025 maalin weyn bay u tahay dadka iyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland waa dharaar bogdahaba ku yeelan doonta taariikhda qarankeena waxaa rumowday riyadii aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland aynu 34 sano halganka ugu jiray wixii weynaa ee shacbigu sugayay baa maanta yimi dowladda Israa'iil ayaa go'aan goosinnimo leh qaadatay oo si rasmi ah dunida ugu sheegtay inay si buuxda u aqoonsatay qarannimada jiritaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland waa dowladdii ugu horeysay ee si rasmi ah u aqoonsatay madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland intii ka dambeysay la soo noqoshada qarannimada Somaliland 18 May 1991 waxaan idinku bishaaraynayaa in dalal kale
ay dariiqa aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan soo hayaan laakiin ma aha markii ugu horreysay ee dowladda israa'iil hormuud ka noqoto aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan hore ayay u ahayd dalkii ugu horreeyey 35 dowladood oo somalilan aqoonsaday markaynu gobonimada ka qaadanay boqortooyadii ingiriiska 26 juun 1960 waa taariikh mar kale isa soo celisay waxaan rajaynayaa in 34kii dal ee xilligaas ku weheliyey aqoonsigu inay iyaguna mar kale soo nooleeyaan taariikhdaas oo ay dunida inta hadhay horseed u noqdaan aqoonsigeennani waxa uu marag u yahay dhiiranidii adkaysigii iyo isku tashigii aynu kula soo noqonnay qarannimadeenna iskaashigii aynu ku dhisnay nabadda cadaaladda iyo nidaamka dimuqraadiga ah iyo dhabaradaygii aynu ku sugnay maalinteenna laakiin weli faraska heensaha kama rogayno waxaynu sii labalaabaynaa halgankii aynu aqoonsiga buuxa kaga raadsanayno dowladaha dunida oo dhan innaga oo intii hore ka dhiiran kana kalsooni iyo haladayg badan waa xaq aynu leenahay sharci ahaan dunida badankeedu waxay garawsatay in jamhuuriyadda somalilan tahay xaqiiqo jirta oo aan cidina dafiri karin siyaasaddii arrimaha dibadda ee xukuumadda wadajir iyo waxqabad way guulaysatay waxayna rumaysay riyadii ugu weynayd ee shacbiga reer somalilan waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa in dowladda soomaaliya ee aynu jaarka nahay u sheego in ummadda soomaaliyeed ay tahay dad dhiig dhaqan wadaaga amnigooda iyo dhaqaalahooduna isku tiirsan yahay laakiin aanay qasab ahayn qasabna ka dhignayn inay dowlad keliya noqdaan waayo aragnimaduna waxay ina bartay in soomaalidu iyadoo kala dowlada ah ay deris noqon karto walaalnimo iyo iskaashi midho dhal ana ku wada noolaan karto innaga oo xor ah ayaynu doonisteenna ku dhisannay jamhuuriyaddii soomaalida oo maanta aan xitaa magaceedu ku jirin dastuuradeenna nasiib darro laguma liibaanin waxaynu ka dhaxalnay cawaaqib xumada aynu maanta weli la kaca ku fayno natiijadeedii waxaan ka digayaa kusii dheganaanta taariikhdaas burburtay dadaalkeenna iyo dhaqaalaheenna aynu ku bixinno dhaymaha nabarrada bulshadeenna ka soo gaadhay riyadii soomaali weyn ee lagu hongoobay innagoo ah dowlado kala madax bannaan aynu wada ilaashanno danaha aynu wadaagno ee gobolka iyo dunidaba saaxiibadayada gobolka dowladaha aanu jaarka nahay iyo guud ahaanba qaramada dunida waxaanu u damaanad qaadaynaa in aqoonsiga somalilan aanu cidna cadaawad iyo dhibaato kuna hayn doonin jamhuuriyadda somalilan waxay hore u ahayd imikana oo aqoonsi heshayna sii ahaan doonta qaran xilkas ah oo mas-uuliyad weyn iska saara nabadda iskaashiga iyo horumarka oo la wadaago waxaan u mahadnaqayaa oo aan ugu mahadnaqayaa magaca shacbigayga dowladda iyo shacbiga israa'iil oo ka soo jawaabay codsigaygii aqoonsiga ee aan u qoray 17 May oo aan madaxda dunida oo dhan u kala diray waxaan mar labaad cusboonaysiinayaa codsigii aan u qoray dhammaan madaxda dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay oo aan ugu baaqayo aqoonsiga somalilan oo ah dowlad xilkas ah kaalin muhiimana ka qaadata ammaanka iyo horumarka dhaqaalaha gobolka badda cas iyo dunidaba waxaan ka codsanayaa urur goboleedka IGAD midowga Afrika jaamacadda carabta dalalka iskaashiga islaamka dalalka commonwealthka iyo qaramada midoobay inay aqoonsadaan xaqa ay somaliland u leedahay inay xubinnimo ka hesho dhammaan golayaashaas waxaan alle ka baryayaa qarankeena jamhuuriyadda somaliland inuu noqdo qaran ku waara midnimo nabad horusocod iyo wax wada lahaansho dadkiisa shacbigayga jamhuuriyadda somaliland ee xiriirta ah waxaan ugu baaqayaa midnimo nabad iyo wada jir waarta waxaan ku gunaanadayaa hambalyo riyadii qarankaa rumowday
waxaan ku soo guraanadaya maadaama aynu ixtiraafkii helnay waxaan farayaa hay'adda shaqaalaha inay fasax siiso shaqaalaha dawladda sabtida iyo axadda si shacbigu u dabaaldego labadaa cisho hay-adaha amnigana waxaa faraya inay ammaanka sugaan gacmaha aynu isqabsanno somaliland ha noolaato salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inaanu xayfa iyo talaabiib iyo u bixino shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashadeeda Netanyahu iyo haddii aan laba leeyahay aan ragga la midka aanu bixino boqor cismaanow maxamuud buurmado oo ka mid haysimada dhaqanka ee Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil boqorku waxa uu tilmaamay in 34 sano Somaliland cidina dhageysan weyday ama ka garaabi weyday qadiyadeeda ha ahaato Soomaali ama dalalka kale ee Carabta boqor cismaan waxa uu ku taliyay in wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Somaliland sida Berbera Hargeysa iyo Burco loogu magac daro magaalooyinka Israa'iil ee Tel Aviv iyo Haifa dhanka kale boqor cismaan waxa uu sheegay in wiilasha u dhashay reer Somaliland ay tahay in loogu magac daro madaxda ugu sareysa Israa'iil sida ra'iisul wasaare Netanyahu iyo kuwa kale ee dalkaasi hadaladiisana waxa kamid ah sida tan waxa weeye shacbiga kan Somaliland waa shacbi baasila oo sharaf badan oo samir badan oo u samray wax kasta oo lagu sameeyay waxaan arkaa guul baan arkaa waxaan arkaa sharaf baan arkaa waxaan arkaa dawlado badan oo Carbeed iyo muslimiin ah wanaagay Somaliland gashan waayeen inay gashatay Israa'iil iyo Netanyahu waxaan arkaa Somaliland inay ka soo saareen urlibaax waxaan leenahay niba tacabkii tubay ka maaliyeen nin waliba wuxuu gashada Somaliland ayuu ka maali doonaa insha Allah taala waxaan ku sheegayaa Soomaaliya waxa halka gaarsiiyay Arabi waxay la wada heshiisay Israa'iil dowladda Soomaaliya waxa burburiyay Maxamed Siyaad Barre 35 wafdi buu kala diray caalamka si aan loo ictiraafin Israa'iil godob bay u keentay Arabina way la heshiisay cidii godobta iyo dhibaatada iyo burburka lagu sameeyay caalamka kula dagaalamayna waxay noqotay Soomaali wata labaad waxa weeyaan dhowr iyo 30 sanadood ee ay Somaliland sidaysay ee mowqifkaada ku taagnayd 24 dal 23 dal ee Carbeed waxa weeyaan wax naxariis uma gelin marka anaga qadiyada Falastiin ma eegayna taayadaan ka horeysiinayna marka wax noqono baanu cid wax la tari karaa marka anagu waxay noola mid ahaan lahayd 23 hore dawladda Carbeed haday iyagu xor ahaan lahayd maanta cod ahaan lahaydna kama sugayn Carab wax dan iyo wanaaga kama sugayn kuwaas bay noola mid ahaan lahayd marka iyaguna nasiibkooda iyo anagu waanu kifaaxkaygi baanu maanta ku helay iyagana kifaaxooda ha kifaaxeen laakiinse wax nooga gaara iyo godob dambe aanu gelayno dawladda Carbeed midna ma jiro anagu waxa weeyaan Soomaali wayna dishay wayna duqeysay wayna la dagaalantay wayna barakeysay wayna qaxisay waxna xariisa kamaanu helin waxaan u mahadnaqaynaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa oo Somaliland maanta gaarsiiyay inay ku Tel Aviv ka degaan naxariistaradii iyo xumaantii ay kula dhaqmayeen inay halkaa gaarsiiyeen meel aanan islahayn ku dhiiranayn aan gaarnayna gaarsiiyeen waan uga mahadnaqaynaa Soomaalina waxa loo wax iskaga kaaya xidhiidh ma jirto waxay arxan loo gashay ma jirto tayadaanu gashay maanta ciidaanu sharaf u haynaa wanaag u haynaa waa Israa'iil waxaanu u soconaa inaanu xayfa iyo talaabiib iyo u bixino shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashadeeda Netanyahu iyo haddii aan laba leeyahay aan ragga la midka aanu bixino boqor aad baad mahadsantahay That's